السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتي دا أصحابتي دا ولا ليه وإذن سلام ميل والبقات جوجتو سلامتا إسلامك شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوم لي أنا عافمات خبط السنة أنا عافمات وقو الحمد لله له تضع حنوصا سبطالك كجرة أنا الحمد لله عافمات إلهي نسي إله وضع هذا مركب ما أنت ولا ليال waxay idin wadaa qisadaas oo la magac baxday walaalihii beerta lahaa. walaalayaal yaan idinka hordhicin marka qisadani ilaahay noogu sheegay quraankiisa kariimka ah suuratu nuun wal qalami wama yasturun alqalam. marka walaalayaal oday baa jiray oo duq ah. ninkaasi nin fiican u ahaa, beer u lahaa, 3 wiil u lahaa, maasha Allah. marka beertaasi nimco ilaahay si ninka beerta miro badan ay dhali, waxay ahayd beer maasha Allah ah. roob markuu da'o miro badan ay dhalsaa, mirihii markuu goosto qaarna masaakiintu siyaa, qaarna asaa isticmaala, qaarna uu gadaa, saas u kala qaybin jiray. marka ninka sadaqadu aad u jeclaa, intuu noolaa sadaqo bixsan jiray. ninka waxaa way masaakiintu way jeclaayeen. marka ilaahay amarkiis dadka fiican waxaa la dhahaa adduunka kuma waaraan, sidaad ogtihiinba aakhir zamana dadka xun ay isku soo harayaan. marka walaalayaal ninka uu dhintay waxaa haray 3 wiil. waxay go'aansadeen, waxayna dhaheen aabaheena markuu noolaa wuxuu ku sugnaa baadicad camal. sadaqadaas may u maleyn ay sadaqada ma weynin, duqaasna sadaqay la weynin. marka waxay dhaheen aabaheena mu fikiri jirin, ma lacagtan iska beeldareen jiray, masaakiinta maxaa la lahaa ana lacagtan isticmaalayna ay go'aansadeen. marka kadib ninkaasi adi horto maalkani waa imtixaan ilaahay dad uu nicmeeyaa, dad uma nimceeyo. maalka faraha badan laguma duceysto, hay'alo imtixaan. shilinkan meeshuu maro ilaahay maanta qiyaam uu kaala xisaabtami. marka ilmihii beertay dhaxleen, beerta markay dhaxleen iga imtixaanka ayuu ku bilaawday. duquu ka guuleystay una dhintay, ayaga imtixaanka ku bilaawday. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay inna balawnaahum kama balawna asxaab aljannati id aqsamuu la yasrumunha musbixiin. waxaan imtixaanay reer makaad, gaaladii reer makaad sidaan u imtixaamnay kuwii beerta lahaa, walaalihii beerta lahaa. marka saas ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay. waxayna go'aansadeen inay beerta goostaan ayagoo masaakiinta wax ka siinin, ayagoona dhihin insha Allah duu eebo idmo berito waan imaanaynaa, walaa yastafnuun ayagoo dhihin insha Allah ta'aala. fadaafa calayha daa'ifun min rabbika hum naa'imuun. waxaase beertii xagga eebe uga imaaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaggiisa waxaa uga imaaday amar. marka ayaga balaana lahaayeen, balaanka ilaahay ayaa wax kasta ka weyn walaalayaal. marka waa la shafay, eber baa laga dhigay, waa la gubay, ay gootay. fa asbaxat kasariin, waxay noqotay wax la shafay oo kale. fatanaadu musbixiin, waxayna isku dhawaaqeen subaxii ayagoo leeyihiin kiciya aan beertii. ariiqdu ala hartikum in kuntum saarimiin, ayagoo leh kallaha oo beerta goosta salaad subax ay lahayn baxa. fantalaquu wahum yataqaafatuun, wayna tageen ayagoo codka hoos u dhigay. qajafta aan la maqlamay rabin, kabay gacan ku qabsadeen, codkan hoos ay u dhigeen say beertu aadaan. mana ogaan xagga eebaha uga imaaday, ma ogaan. allah yadqulahna al-yawma alaykum miskiin, inay beerta masaakiin maanta soo gelin ay go'aan ku gaareen. go'aanka weyn hor uga imaaday. waqadu ala hartin qaadiriin, wayna ka leheen ayagoo diidan inay masaakiin soo gasho beerta. falama ra'awha qaalu inna ladaalun, way galeen. markay galeen waxay dhaheen maanta soo dhunnay beerteeni, beertan ma aha, beerteeni beertan ma aha. way wareereen, adi beerta ma way gubatay ayadoo dhan say qatar u ahayd. markay galabta ka tagayeen cagaar bay ahayd, markay soo galeen madow ay noqotay. farnaxna maxruumuun, laakiin way ogaadeen haatan inay meeshii tahay ayna beertooda tahay, way fahmeen. qaala awsaduhum alam aqul lakum lawlaa tusabbixuun. markaas kii ugu fiicnaa, saddexdood mid ah fiicnaa, maxaa yeelay qoomooda ma wada halaabayo, hal qof ayaa ka fiicnaani. marka qof halkoo ka mid ahaa oona dhahay
ما naga daasiin kii u ficnaa ayaa yiri ani sooma idin lahayn dhihi jirin eebe weyneeya ilaahay ka cabsada sumani dhihi jirin qaalu subxaana rabbina innaa kunaa dhaalimiin markaas ay dhaheen eebe weyne waan xadgudubnay ilaahay baan ku xadgudubnay marka waan qaldamnay dhaalimiinna waan noqonay ay dhaheen markaas fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatalaawamuun markaas qof kii saddexdoodba ayaga is eedeen dhexdooda ayaa is eedeen qaaluu yaa weylina innaa kunaa baaqiin waxay dhaheen magacayna ba'ye waan xadgudubnay ilaahay aan ku xadgudubnay maxaa yeelay imtixaamkeena waan ku dhacnay camal casaa rabbuna an yubdilnaa khayran minhaa innaa ilaa rabbina raagibuun eebe wuxuu noo dhow yahay inuu noogu bedelo wax khayr qaba ayuu noogu dhowaa haddaan sadaqaysan lahayn maalkan ilaahay khayr uu noogu bedeli lahaa laakiin anaga waxaan ku fikirnay inaan sadaqaysanin aan suxun u dhaqmano aan u halayno wayna heleeyeen already niyadooda waxay geliyeen inay masaakiinta wax siinin marka walaalayaal sadaqada meesha uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noo dhigay waa ogtihiin sadaqaysta uu dhahay xitaa gabal yar oo timir ah allah ka dhigay sadaqaysta uu dhahay sadaqada ما شاء الله صدقات way fiican tahay marka kadalika العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون taas adduunka loogu maatay cadaabta waa cadaab yar cadaab weyn baa ka dambaysa maanta qiyaamo marka walaalayaal qisadani meeshan ay ku eg tahay insha Allah quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu noogu sheegay marka walaalayaal haddii ilaahay nimco ku siiyay lacag aad leedahay waa imtixaan lacagtan maanta qiyaamo waa lagu weydin waa lagu dhihi dhalinyaronimadaadii maxaad ku soo dhamaysay lacagtan ku siiyey maxaad ku soo dhamaysay cilmigaadana maxaad ku soo dhamaysay saddexdaas su'aal ilaahay adi iyo ilaahay qof idin turjubanay ma laha labadiina is hadlaysiin waadna ka jawaabi mastana way kula tahay marka inta adduunka joogto ma walaal is xisaabis inta lagu xisaabin marka walaalayaal insha Allah ta'ala intaan mar kale ku kulmayno waa inoo video xiga insha Allah haddaad subscribe ii saaran haddana soo booqatay waxaan sugaysaa walaal dhiirigeliya comment like share dinga waxaad ku ahay ma sha Allah insha Allah ta'ala khayr ayaan idin rajeynaa maanta idin macnaato khayr